gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland gaashaan sare Cabdullaahi Maxamuud Ibraahin ayaa booqashay dhiirigelin waxa uu ku tagay dugsiga tababarada ciidamada daraawiishta Jubbaland ujeedka socdaalka gudoomiyaha ayaa wuxuu la xiriiray sidii moraalka ugu dhisi lahaa ciidamadani cusub ee ku soo biiraya howlgallada dalka looga xoreynayo kooxaha argagixisada ee nabadda iyo amniga u diidan shacabka Soomaaliyeed. Gudoomiyaha ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in ciidamada lagu wacigeliyo sidii sharafta iyo akhlaaqda ay kula dhaqmi lahaayeen mujtamaca ay u dhaarteen xaqiijinta amnigooda. gaashaan sare Cabdullaahi Maxamuud Ibraahin gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa wuxuu ka sheekeeyay in sababta loo tababaray ay tahay sidii cadowga ummadda looga dulqaadi lahaa goobaha muhiimka u ah bulshada, wuxuuna kula dardaarmay in ay ku dhiiradaan soo afjaridda haraadiga maleeshiyaadka argagixisada. gudoomiyaha ayaa xusay in mar walbaba ciidamada looga baahan yahay inay qoriga loo dhiibay naftooda ay ku difaacaan bulshadana ay ka ilaaliyaan waxyeeladiisa, isagoona intaasi ku daray in dhagarta cadowga laga foojignaado. runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan arko ciidan noocan oo kale ah oo diyaar garoobaya oo dhalinyaro ah oo calankii qaranka ku wada labisan astaantaas aad xiran tihiin oo buluuga ah waxa waaye waa astaantii ummadda Soomaalida lagu yaqaanay. intaa ka bacdi waxaan rabaa maanta inaan ku soo ururiyo hadalkayga ama toobigayga aan ka hadli doono haddii la yiraahdo laba mawduuc waa kii muslimka qofka muslimka ah sideedaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa muslim naga dhigay. inagu maynan ilaahay dalab qoran inta dokumentiyo qoranay mayna ilaahay u geysan ilaahay baa inoo gartay subxaanahu wa ta'aala yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iimaan in kuntum ta'lamun. ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa islaamnimadka inagu manaystay, ilaahay baa ina siiyey, waa deeq rabbaaniya, lacag ma goyso, cid kale ma bixiso. ilaahay baa hanuunka qalbiga islaamnimadka inaynu qaadano. islaamnimadku laa ilaaha illa allah muxammadur rasuulullah ka bilowdaa oo ay macnaheedu tahay ilaahay xaq lagu caabudo kale ma jiro ilaahay mooyaan subxaanahu wa ta'aala. nabi maxamedna waa rasuulka ilaahay oo rasuulada la soo diray ugu dambeeyay. inta marka dhacdo waxaad noqonaysaa qof muslima oo taytarka muslimka qaatay baad noqonaysaa. intii kale cibaadaadkeedna marka waa laga sii rabaa. marka midan ah inaad muslim tahay iibkuguma soo gelin. haddii xataa in dadka qaar loo iibiyo la isku dayo looma iibin karaba. maxaa dhacay? ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa qalbiga geliya. waxaan inagu wada rabnaa ilaahay mahadis inaynu islaam ahaano oo diinteenna ilaashano oo dhaqankeena suuban ilaashano. intiinaas hadda waxaa laga yaabaa qaar badan oo xoogaa cibaadadii iyo xoogaa laga yaaba inay ka khaldan tahay, haddana haddii islaamka agtaada lagu taabto waxa weeyaan waa dagaalamaysaa. marka taasi waa islaamnimadka diinteenna qaaliga aynu ilaashano. shaatin haddaad qabtaan tusaale haddii inta laydinka saaro oo xoogaa la dhaqdhaqo meel la geeyo ku dhac baa la yidhaahdaa. soomaalida qaarkood carruur qorax bay u taqaanaa. marka qiimo badan ma goynayo. diinta islaamka waxay ka dhigan waxaan qiimo goynaynin. nimankaani waa niman dhiigga islaamka u ooman. marka waxay raadinayaan maxay qiila dhiigga islaamka ku banaystaan. waxaa la hal diidani geeda ku xoqata ma weydo. ninkii la yaqaanee hasha markii ilmaha lagu soo duwo ee rabtay in aana ka maasho hadday ku diidan tahay meel kastoo bannaan oo ugu sibir bixiso ma ku godlanayso. marka marba geed bay ku xoqan, marba meel bay laaci, marba meel bay ursan. maxaa kaloo la yidhi hasha diidani maqaarka meesha duulashay ka ursataa. yani waxa weeyaan maqaarka meesha duulashay ka ursanaysaa ilmaheedii uma soo urayo. carabtii ilmaheedu udgoonaa u lahaa ma laha. nimankan marka wanaagga islaamka laga qariyey waxaa loo macaaneeyey dhiigga islaamka loo macaaneeyey. therefore waxay raadinayaan qiil ay ku banaystaan. farqiga noo dhexeeya muxuu yahay iyagii shabaab iyo nabi maxay noo dhexeeya? waxaa noo dhexeeya ayaguna waxay leeyihin dadka aanu layno, annana waxaan leenahay warmaya dadka aan deyno badbaadino ummadda aan u shaqayno. farqiga noo dhexeeya waa kaas. hadday iska soo wada yimaadaan oo yidhahdaan nabad baan u qaadanay waxaynu calamaynu kala hortegaynaa. waxaan leenahay soo dhawaada nabad baan siinaynaa. laakiin hadday iyagii weerar yihiin dee waa la iska celinaya. wax kale ma yaala meesha, xal kale ma leh, si walbaa loola hadlay. qodobka kale u wareega waxaa weeye ciidan baatiin waa tababarateen. waxaan rajaynayaa inay dhowdahay haddii alla yidhaahdo xilligii aad dareeska xidhan lahaydeen oo qoryaha laydin siin lahaa. qori haddii lagu dhiibo balaayaa faraha lagu geliyey. ha u malaynin in calan in lagu siiye taaj. si waa taaj oo waa ummadda awooddeedii baa lagu dhiibay, sina waa khatar. balaayada ayadaa waxaa la rabaa inaad adna iska badbaadiso, ummaddana ka badbaadiso, saayilkana ku dhufato. way fahamtay soo ma? aduu iska badbaadi kow maxaa dhacay
horta kow qofka u mudan inuu badbaadiya haya waa adiga adu iska badbaadi labo ummadda aan xaq u yeelan in la dilana ka badbaadi oo ugu horeeyaan ciidanka kula jooga askari kula jooga ee kula shaqeynaya ee cadow aad isku cadowga tihiin ugu horeeyo xaqu ka jira maxaan ku dhahay ka ilaasho qorigaas sifaysanaya meel gaara ku sifayso markii qoriyaha la nadiifsanayo haddaad dhahay ciidanka bartankiisa ku furfuraya berrika maalina dambiga ma gashay marka la yiraahdo way iga qarxada la soo taagantahay way iga qarxada waa lagu qarxina ya adiga inta meel lagu fariisiyaa lagu qarxina anagana naga ka qarxi marka waxa la rabaa qofku sideedaba qorigan uu haysto waa inuu afka nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa ina baray ijraa'ad amniya leedahay ka hortaga dhibaatooyinka hubka la yiraahdaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri hadii qofkiin hub wato xilliga nabiga sallallahu alayhi wa sallam qori ma jirin waxa jira seefo wuxuu yiri markuu masaajidka soo galiyo markuu umada soo dhex galayo seeftiisa afka ha qabto seeftu dabcan galbay leedahay si marka galka ay uga bixin dadka ay dhibaato u geysan afka qabo maxay marka noqonaysaa wax kasto oo dadka kaga badbaadinaysa samee qorigeeyna saxaabada ku jirin baan moodayay baa ugu talagalay kan ugu dambeyn gaashaanle sare Cabdullaahi Maxamuud Ibraahim ayaa ciidamada faray inay xoojiyaan midnimada taasi oo keeni karta inaan lagu soo dhiiranin sidii loo kala goyn lahaa bulshada wuxuuna ku bogaadiyay ciidamada inay laba jibaaraan howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka argagixisada taraftu waxay ku jirtaa ilaahay ku xidhnaato kow qofku hadduu ilaahay ku xidhan yahay sir ilaahay baa u furan baaba u furan kanaal rabbaaniya u furan uu dalici maalin baa ugu darsani sharaftiisu ilaahay baa ciisaynaya walillahumma maalikal mulki tuuti mulka man tashaa wa tanzi'u mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa biyadika alkhayr innaka ala kulli shay ilaahay subhanahu wa ta'ala qof ku xidhani ma dayacmo ma duloobo ma faqiiro hadduu faqiirana ilaahay baahidiisa marka waa awdaa sharafta marka maxay ku jirtaa kow alla ku xidhnaansho kow laba alla ku xidhnaansho saddex alla ku xidhnaansho shayga labaad sharafta ku jirtaan waxa weeye shaqada ummaddu ay ku dirsatay amaanada ummaddu ku dhiibatay inaad ka dadaasho idinku saad soo aragtaan waad ka weyntihiin soo ma jirto wax walba meel ku soo gabagabada ya askari yaro caalan qabo uu hayso arkaya mas'uul baa lagu saaray calan baa lagu saaray taaj baa lagu saaray waa lagu caleema saaray calankani waa kii raka gabiyay ya Abdullaahi Sultaan Tima Cadde maalinta fiiri gabdhaha ilmada ka qubanaysa shalalala markay calan Soomaaliyeed la saaray arkeenkii maxaan ku Talyaaniga Ingiriiska la dejinayo ee uu lahaa kana saar kana siib erag waa cabiri fiiri kan saar waa kaayay kan ala haysaya kan saar ka xune reer galbeedka wataan iyo shisheeyo wateen siib marka calanka maalinta la saaray dadka Soomaaliyeed nus kamid way ooyeen yani waxay la ooyeen farxad bil la ooyeen ma isaga ma caabudeyna maya ma caabudeyna laakiin waa astaanteena ummadada ilaashanayna waay astaanta ummadeed ma quraan baa soo sheega may rasuulka sallallahu alayhi wasallam calamu laha asxaabtiisa calamo kala nooc marka qaar ku dhiibi jiray ma quraan baa soo sheegay maya nin baa intuu naqsadeen baa wuxuu calanka nagu waa kan ree baru fulan waxay wateen calan madow kooxda heblaayada waxay wateen calan madow qaybtii uu hebel hogaaminay calankaas ay wadatay annaga calan bulu oo cirka u eg baan samaysanay yaan dambi ka galay gaf ka galay calankan cirka u eg ya ninkasaan calankiis aynad gooniya inaga kenwa cirko kale ninka la dhihi jiray maxamed liban awaale liban yani waxa weeyaan kenwa cirkaas oo kale waa tusaale fiican waa samada ku dul taagan samadan quruxda badan ilaahay abuuray subhanahu wa ta'ala baan ka soo dhambalanay waa la caleema saaray marka wad caleema saaran tahay waxa rabnaa hadii la yiraahdo maadaama uu dhow yahay tababarkii aan rajeynaa insha Allah inuu soo gabagaboobayo maadaama shaqo weyn oo mas'uuliyad taalo nin wala waxaad ka fakartaa inaad noqoto jaranka ciidanka xukumi doona ninka wadanka madaxweynaha ka noqon doona war ku fakara ana idin leh ku fakar sideeda nin fakara in madaxweyne noqdo nin gurigooda jiifo la soo kiciyo taariikhda adduunka lama maqal kaale leeyahay madaxweyne noqon taliya ciidanka nin birta soo calaashaday baa taliya ciidanka noqdo juhdiga iyo dadaalka aad bixisaa dad lagu noqdo aad waxaan rajaynayaa biidhnillaahi albaari in aynu noqono dad wax qabsada si ay guusha u gaaraan
waxaan rajaynayaa maalin maalmaha ka mid ah haddaynu hadda lugayno waxaynu gaaraynaa aseedooyinkii dowladda soomaaliya intaasoo milyan oo lacag ka soo xarayn jirtay oo dowladdu ay lahayd oo iskaashatooyinta ciidanka loo sameeyo beeraha ay beeranayaan 10 askari inta la isku siiyo 50 hektar la isku siiyo ama 10 hektar ba la isku 10 hektar ba ka badan ba la isku siiyo aad beerataan oo nooc kasta cunto aad ka soo saaran kartaan laakiin saayna fikirtaan aragtida fog aad yeelataan wabiyaashan ka faa'iideysano badaheenna ka faa'iideysano jawigeena muriixan ka faa'iideysano xooleenna ka faa'iideysana waxay ku xidhan tahay inaad idinku wadankan saad u xoreyn lahaydeen ka qayb qaadataan haddii kale maalin walba qaxooti iyo silic iyo saxariir u diyaar garow iyo tahriib carruurteena maanta waxa lagu tahriibiyo ee lagu qaadaay waa bahal yaro intaa leeg oo caag la buufiye iyo rayinta ilmahan lacagta ka ursadaan bay tahriibiyaan lacagta ka ursadaan markaasay badaha ku dhaxdaataan islaamo uurle niman dhalinyaro wadanka ku soo kacay yaano aad iyo aad bay nasiib darro u tahay in dhibkaasi na gaaro inagoo dhulka nimcada haysana